Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteen waa walaasheen Safiixo biyo idinla welcome ku soo dhawaada asxaabteyda. Ugu horeyn channelka dadku cusub tahay subscribe noo saar, like noo saar, dhiirgelin bay noo tahay insha Allah. Ku soo dhawaada maanta saa aragtiinbo qisaan soo qaadanay. Qisadan waxay leedahay Samiiro iyo waxay ahaayeen Saadiq. Saadiq wuxuu ahaa nin xaaskiisa dilo, markastaba wuxuu ahaa nin xaaskiisa dila. Marka Samiiro waxay ahayd xaaskiisa Saadiq. Saadiq marka Samiiro waxay leedahay Saadiq wuxuu ahaa nin dila xaaskiisa dila. Samiiro Saadiq waxay u dhashay hal gabar. Saasay tahay wuu dilaa markasta wuu dilaa. Marka saasay tahay marka hore way isjeclaadeen oo familgeeda xitaa ay ugu soo gaadeen markii ugu horreysay iyaga is aroosay. Cida uu dacwoona haday dhahdeen uguma dacwoon karto waay familgeeda waxay ugu soo tagtay Saadiq. Saadiq markaasna gabadha awaalkeeda inuu u gudo meeshii laga rabay wuxuu ahaa wiil dhib badan inta badan naagaha dila. Samiiro markay ogaatay ninkeeda inuu saas u dhib badan yahay ugu horeyn marka horeba Ilaahay uu wada ka dhaxsiiyay ayagoo aroos cusub ah bay gabadhaas u qaaday Saadiq. Marka waxay go'aan ku qaadatay dilkiisa inay iskaga dul qaadato gabadheeda aysan ka fogaan hooyo la'aan aysan ka noqon. Marka Saadiq asna intaas muusan fiirinaynin marka intaas oo dhan muusan fiirinayn gabadhii marka gabadheeda darteeda bay wiilkii u dhahaysay wax walba ay u sameysay. Marka ugu dambeyntii Samiiro waxay u dhashay gabar. Gabadheedii bay u soo weynaatay 5 jir bay noqotay gabadhii markasta waxay arkaysaa hooyadeed iyo aabaheed oo isku qayliyo oo aabaheed hooyadeed inta badan uu dilo. Marka gabadhii markay aragtay intii gabadhii ciil iyo caro waxay ku noolaatay Samiiro ayadana in badan gabadheeda ay u samreysay. Samiiro uur labaad Ilaahay siiyay marka ayadoo walac ah marka dabeecadihii waxay in badan ay ka bedelmeen Ilaahay amarkii. Marka Samiiro ayadoo saas ah buu Saadiq buu imaaday maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yiri isaa uu soo galay Saadiq wuxuu arkay Samiiro waxaas meel dhigtay ay ka haleysay misna meeshii uu dhigtay oo ka waayay marka kadib Saadiq wuxuu la soo dul dhacay Samiiro ul soo dilay marka hore deriska ka celin jiray deriskiina ma joogin oo maanta kaligooday ahaayeen marka maadaama deriskiina uu maqnaa Saadiq soo dilay Samiiro reer waxay gaadhay inay suuxdo maadaama ayada xaamil ay ahayd markeedii horebo. Kadib dad baa imaaday meeshii deriskii ay imaaday waxaa loola cararay isbitaalka intii loo sii wado Samiiro meeshii bay ku geeriyootay. Murugo iyo gabadhii wuxuu ku noolaatay oo yareed ciil bay caro intii ay qaaday gabadhii yareed bay nolosheedii oo dhan qiiro isku bedeshay mar walba ay qiiroon jirtay. Aabihii marka uu gabadhii dhalay waa la xiray maxkamadii waxay ku xukuntay dil toogasho maadaama uu xaaskiisa uur u lahayd uu dilay. Marka saas markuu ay dhacday kadib marka wiil walaalkiisa ah wuxuu yiri gabadha yar aniga korsanay maadaama uu walaalkayga naagtiisa uu dilay asna la yiri waa la dilayaa marka gabadha yar anaa qaadana oo korsanay buu dhahay. Gabadha yar waxay la soo imaaday marka ay guriga ay u imaaday adeerkeedii buu qaatay. Adeerkii markaas wax caruur muusanaysan wuxuu yiri anaa caruur la'aan anaa sii haysananta Ilaahay wax iga siinayo. Marka gabadhii saas oo la joogtay adeerkii aabaheed iyo hooyadeed saas ay ku dhinteen gabadhii ciil qiiro si ugu nooleed in badan way soo qaan gaartay marka waxbarashadeedii waxay ka bixiyay kadib markay soo qaan gaartay adeerkii meesha waxa Ilaahay ka siiyay 2 ciyaal wiil iyo gabar baa meesha ku dhalay asna. Marka ilmihii ciyaalkii waxay keeneen marka inay gabadhan ay ay dhahaan gabadhan waa gabar xun macnaha gabadha hooyadood aabood maysan dhalin laakiin hooyadood uma korin inay eedo u tahay wax u korisay sida hooyada dhabta u dhashay camal. Marka maadaama ay saas u korsay ilmihii ciil ay qaadeen marka uqdad bay u qaadeen hooyo gabadhan ayadoo dhalin bay saan yeeshay anaga saanayna yeeshay marka gabadhii ciil solo wax walba oo xun guriga ka dhaca iyada madaxa laga saaray dhigi jiray gabadhan iyada sameysay marka gabadhii inkastoo ayada ciilkii hooyadii aabihii iyadoo ku jiro haddana cadaadis
ay ilmihii adeerkeeda dhaleen ay saareen. Gabadhii way u dulqaadan weysay, marka waxay go'aan ku gaartay guriga inay iskaga tagto.